السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hasta la Victoria sempre غاية شمال باتوكين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله والشكر إليه waxaan mahadnay ilaahay waxaan kaloo halkan niga mahadcelinayaa ducadiinni inuu alla ii aqbalay. waxaan isbitaalka soo galay taariikhda markay ahayd 7 subaxnimo oo bishan abriil 2020 waxaa dhacday inaan aroortii hore telefoon la ii soo diray inaan aqalkayga ka soo baxay anoo caafimaad qabo. waxaan tegay magaalo oo la keenay dhalinyaro Soomaaliya laga keeno qaxooti ah wiilal yaryar ah oo laga dalbaday inaan u turjubaano. mar allaanaan meeshii tegay wiilashii u turjubaanay glove baa igu jiray afku way xirnaa, laakiin dhanka indhaha ayaa isaaba iga gaartay. anigii iyo naagtii isbitaalka ciyaalka soo dhaweynaysay ayuu nagu wada dhacay. mucjiso ilaahayna waa tahay, dembi dhaaf allah iga dhigo. mar allaale markaan isku arkay inaan dawaqay oo aan qanfacayo temperaturkii kacay, si degdeg ah isbitaalkaan aaday. isbitaalka markaan aaday waa la amid garay, waxaa laygu tacaalay ilaa habeenkii 2 habeennimo. isla markii way heleen, meel dheer ma aadin. in yaroo aan badnayn oo ilaa 18 xabba ah viruska ayaa dhuunteeda galay. waa laygu dadaalay, sanbabku ma degin, waa layga soo dhuuqay, daweyn badan antibiyootigaa la siiyey. 4 cishaa lagu guulaystay. xalaa ugu dambeeyey oo aan testkii ugu dambeeyey maray, waxaa la ogaaday in lala dagaalamay oo ilaahay iga badbaadiyo layga saaray. maanta telefishinka ministra ii yimid iyo waxaa ii yimid ku guulaysteen. taraddeeda aad iyo aad bay sharaf uga heshay. daily ma gelin. waxaan rabaa halkan inaan niga soo jeediyo guryihiina fadhiya. waxaad ku dadaashiin afka kala xiranaya kelimaha cudurka inta badan indhaha ayuu dad ka galaan. indhooyiga gale waxay yeelatiin indhaha isku xirta, kiyaalayaal gashta adag, gooralba kiyaalaha siibina, gacmihiina aad u dhaqa, aad is ilaaliya. aad baa u mahadsan tihiin. waxaan intaan isbitaalka ku jiray aan u duceynaya Soomaali, gaalada yaaba la tacaalayso, in ilaahay uu Soomaaliya gaarsiin, in ilaahay uu Afrika ka badbaadiyo, muslim iyo gaalba ka qaado cudurkan. waa cudur dilaa aad u xun. aniga waxaan ahay one of the miracle ayuu maanta doctorkii igu yiri, oo succeed gareeyey oo ka kacay oo si degdeg uga kacay oo 4 cisho uga kacay. dhakhtaraddeeda xataa maanta shahaada lagu siisay igala tacaashay. dhuunta sanka tube laga geliyey laga soo dhuuqay. antibiyootik badan dhuunteeda dhan waa ujeedaa, way duduleeshaa. aad baa loola dagaalay. maanta waa caafimaad qabaa, laakiin hadda weli waxaa la ii bedelayaa station kale oo ku nasanayo intensive care ah. halkan markuu igu dhacay cudurka ciifan dhulkan ku dhacay. maanta waan fiicnahay. waxaan rabaa eheladeydii, waxaan rabaa asxaabadeydii meel walba ay joogaan. waan niga mahadcelinayaa ducada ii duceyseen. waxaan kaloo aad iyo aad niga waaninayaa guryihiina fadhiya, meelaha tegina, mujtamacyada ha tegina. aniga hadda waa fiicnahay aad iyo aad. xali ma hadli karin, shalay ma hadli karin. dhadhankeyga waa ii soo noqday, kafeegaan caboyaa, awal dhadhankii xataa wuu iga tegay. marka intuu cudurka hayn allah ka kiciyo. marka one of the miracle weeyaan oo ku kacay. laakiin aad bay ila dadaashay. dhakhtaraddeedii waxay ahayd naag muslimada oo Afghanistan ah oo aad iyo aad ay ila dadaashay. marka adinkan waxaan nii rajeynaya inuu ilaahay cudurkan niga koriyo. meel walbaad joogtiin waxaan leeyahay waan jeclahay. abqaqaani is back. hasta la Victoria sempre qaqaayaasha. hadduu ilaahay yidhaaho dembi dhaaf allah iga dhigo. cafis baan weydiistay, cafiye. aan ku dadaalno sidii aan ubadkeenna iyo reeraheenna iyo kulli u ilaalin lahayn. marka hadduu ilaahay yidhaaho ma garanayo goorta isbitaalka ka baxayo, laakiin maanta karantiinadaa laga saarayaa. weli hadda karantiinadaan ku jiraa, waa laga furay. wax walba igu xirnaa iyo oxygen kulli. waa caafimaad qabaa. am healthy.
wax iga maqan male dhadhankaygu wuu ii soo noqday amad ma lihi daciif ma ihi faleebooyin badan baa igu socda oo antibiyootic badan la siiyey maantana waa layga tallaalay saaki aroornimaa layga tallaalay so I don't have to be a worry at all aniga lagama yaabo inuu mar kale igu soo noqdo yiribka waa tallaalnay tallaalkii ugu horreeyey lagu baroweeyey meer kale ayaana laygu tallaalay marka hadda aad iyo aad buu caafimaadkaygu u fiican yahay saxaradeedu waa caadi indhahaygu waa fiican yihiin dhadhankaygu wuu soo noqday waa ni jeclaha ni leeyahay mar kale iyo mar labaad iyo mar saddexaad waxaa aad niiga mahadnaqaya ducadaa ii duceyseen jazaakum laha kheer maanta waxaa la marayaa xun bil shacbaan aan ku jirnaa ilaahay shacbaan wuu iga badbaadiyey ilaahay kuu la xoreeya allah nagu daro sidaasoo kale waxaan u rajeynayaa waddankeena soomaaliya iyo dhalinyarada iyo wax walbo dhalinyaradii aan ka qaadayna mid wuu fiican yahay midka kale waa lala tacaalayaa waa wiilal aad u yaryar oo shabaab oo 20 jir iyo 20 jir ah iyagana waxaan u rajeynayaa caafimaad degdega saxaabadeyda meel walbay joogaan waxaan leeyahay baqataan fiican yahay anayga welwelina ducadana meesha kasii wada hadduu ilaah yidhaaho is one of the miracle ani waa ka kacay 4 ishaan kaga kacay ilaahay waxaan uga baryayaa inta kalena si degdeg inuu cudur ka qaado soomaali badan baa cudurka maanta u jiifto meel walbo dhalinyarada waxaan kula talinayaa guryihiina fadhiya dhalinyarada waxaan kula talinayaa haddaad soo adeeganaysiin afkiina xirta gacmihiina galoof kasta gacmaha dhaqida badiya biyo badan caba sidii la treatmentka ani leegu sheego 15 daqiiqo walba biyo caba sanjabiil iyo waxaa iyana ku unsada waxaa kaloo ku dadaashiin inaad indhihiina xiratiin siiba indhihiina okyaaliyaal kasta meesha ugu fududoo qofka ka galo waa indhaha iyo sanka hadduu xiran yahay xataa wuu kaa geli karaa afka wuu kaa geli karaa laakiin indhaha u daran oo very weak ah indhuhu aad uga galaa barkii hawadu la socda marka indhaha wax virus ama qof ka viruska hawada ku jiro indhuhu dadka galaan indhahan ka qaaday wiilasha markaan la hadlayo waa xirnaa gabadhi kalena waa usoo duceynayaa weli way bugtaa iyada aniga laakiin maanta waa lagu guuleystay waan ka kacay waxaan noqday xaaladii ugu horeysay jarmalka aad iyo aad ugu guuleystaan muddo yar gudaheeda waa la safe gareeyey weliba aniga waxay ugu tiri naagta xataa you are very lucky aniga waxaan ahay nin sokor qabo aniga waxaan ahay diabetic aniga waxaan ahay nin blood pressure qabo da'dana waa weynahay laakiin ilaahay iga badbaadiyey ilaahay baa doonayay marka inaan weli sii joogo alxamdulilah anna waa ugu shukri naqayaa waa 2 salaad shukriyaan dukada hore kacdaha 4 ah intaan halka jiifanay quraan badanaan akhrisanayay quraankana faa'iido badan uu leeyahay waxtar badan uu leeyahay niyadda ii qabowday cabsi badan baa igu jirtay cabsidiina waxaan kaga baxay iimaankayga iyo quraankayga marka waxaan leeyahay meel baad joogtiin abaqaqaan maanta cudurka kacay hadduu ilaahay yidhaaho waxaan plan garaynayaa ma garanayo 5 cisho 3 cisho 4 cisho iyo inta aan kusii jirayo stationka kale oo aan ku nasanayo dawooyin aan ku qaadanayo laakiin 100% cudurkii waa iga baxayay waxaan ahay nin nadiif ah waxaan ahay nin la tallaalay dib dambena looguma yaabaa laygu yiri inuu kuu soo noqdo marka waxaan doonayaa inaan holon qabto aan ubadkayga soo fiiriyo iyo walaashay iyo ehladeyda aan xogaa yar soo nasto marka waxaan nii rajeynayaa caafimaad in ilaahay caafimaadna siiyo in tawxiidka la qabsado in ilaahay cibaadada nagu hagaajiyo in ilaahay qaatumada nagu hagaajiyo bil ramadaana la soo gelayaa looma malaynin inaan ramadaan gaarayo laakiin alxamdulilah ilaaha u mahadnaqayaa suma asxaabteedii iyo garab taagneed ila soo hadlaysay saqbadhe iyo kulli iyo giddaada magacyada sooma qaadi karo yaas iyo kuwo badan iyo dad badan iyo ehladeydii iyo wiilasheydii ciyaalkeygii ehelkeygiiba aad u baqay aad baan u fiicnay walaalkeeda haddana saas oo kale 24 hour ila hadlayay marka alxamdulilah waan guuleystay caafimaadaan qabaa waxaan leeyahay alxamdulilah washukru ileyh xasbi allah wanicma alwakiil laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku lahu alxamdu wixim waa mahadsantihiin markaan stationka kala tagoon si fiican u nastana wixii cusub oo soo kordho waa nila soo socodsiinaya waa mahadsantihiin